السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي شرفت له وأنا دين سلامي سلام كدب. أخياري ما أنتو waxaan rabaa 10 yar oo ku saabsan web designing ama website sidee loo sameeyaa. Waxaan sameyn doonaa qaabka loo sameeyo loo nashqadeeyo website. Waxaan u sameyn doonaa waxaan ka bilaabi doonaa qayb hoose. Waxaan geyn doonaa qaybta ugu dambeysa ee dhisidda website-ka. waxaan sameyn doonaa website dhammaystiran ee aan isla socono. intaanan bilaabin website-ka waxaan isticmaali doonaa laba file. labadaas file oo la kala dhaho file noqon doono website-kii HTML iyo file noqon doono style-kii website-ka uu lahaa. hadday ahaan lahayd animation-ka, hadday ahaan lahayd qurqurxiskii oo idil. Okay, si aan u sameeyo marka hore waxaan sameynaa folder ayaan waxaan ku abuurinaa desktop-ka. waxaan leeyahay new folder. kadib folderka waxaan u bixinaa website testy. waxaan u bixiyey website testy. markaan folderka saas u sameeyo sidoo kale folderkan sii galaa waxaan sameynaa images. folder ay ku qoran tahay images ama sawiro. folderkan waxaan gelin doonaa hadhow sawirada. okay, marka waxaan ku sameeyey desktopka waxaan ku sameeyey website test. kadib waxaan sameeyey folder sawirada. okay, waxaan soo gelinaa sawirada aan isticmaali lahaa. tusaale ahaan sawirada aan isticmaalayo kana ka mid a. waxaan soo sameynaa waa soo koobiyeenaa kadib waxaan ku paste gareynaa halkan. okay, waxaan ku paste gareeyay halkan. sidoo kale waxaan soo qaadanaa sawiro kale. okay, sawirada kale aan soo qaadanayo oo aan u baahanahay in website-kayga uu ku shaqeeyo aan raadinaa. bismillah. okay, intaan furaa launcher. okay, midkan oo kale iyo okay, sugarta sawirada aan iska fiiriyo. sawiro waxaa jiraan oo clear ahayn. aa jiro iska fiiriyo. okay, midkan wuu yar yahay mi anfacayo. okay, midkan oo kale macquul waaye. minis waa sawir qurux badan oo weyn. okay, isna iisoo koobiyey. sidoo kale midkan ha kasoo tegin kana ha kasoo tegin. okay, iisoo koobiyey labadooda. waxaad leedahay copy kadib fileka aan sameeyo oo ahaa sawiro igu shub. okay, hadda waxaan soo sameystay sawiradii aan soo sameeyey. okay, kadib waxaan leeyahay waxaan kicinaa programka. laba programaa jiro. mid waa notepad plus midna waxaa lahaa midkan waaye oo ah subslim. waa kan sublime loo yaqaana subslim text. okay, midka arrintaa isticmaali kartaa laakiin aniga hadda waxaan isticmaalaa subslimkan isticmaalaa. okay, subslimka waxaa lagu diyaariyaa isna. okay, waxaan leeyahay si aan u furo file cusub new file ama okay, hadda waxaan rabaa inaan sameeyo filekii ahaa HTML-ka. kadibna waxaan sameynaa file ah style. okay, hadda waxaan abuuraa fileka. intaan fileka abuurin okay, folderkan iisoo kici horto. okay, aan bilaabo. bismillah. waxaan ku bilaabaa dockertype. it means waxaa laga wadaa documentiga noociisa waa HTML. okay, markaa meeshaan maraayo waan save gareynaa control s aan leeyahay. waqtigaa ratidaa save gareysan kartaa laakiin aniga haddaan save gareeyey. kadib waxaan leeyahay desktopka waxaan ku qoray test website. sax, website test yaan dhahay. desktopka tag waxaa raadisaa website test. okay, waa kan website test. intaan ku save gareynaynaa. meeshaan waxaan ku qoran test.html. maya waxaan u bixinaa index.html. markaan saas dhaho enter dhaho it means wuu qaatay. okay, waxaan bilaabaa marka koodkii lagu gali lahaa. tusaale HTML waxaa lagu galaa koodkan. sidoo kale HTML soo xir. okay, markaa meeshaan maraysid hoos u soo deg. sidoo kale waxaan sameyn doonaa madaxii head. sidoo kale headka aan soo xirno. okay, sidoo kale waxaan sameyn doonaa body oo meeshii lagu qori lahaa tagga iyo wixii la mid ah. body
okay qalada jiro okay body de body marka dhaadid hoos okay sidoo kale meeshan waxaan ka ilownay waxa loo yaqaan title waxaan leenahay title marka dhaadid title-ka waxa ku qoraysaa isna okay let me do this iyo golaan sameeyo title table man title laga rabaa waxaan leeyahay title ciwaanka okay hadda markaan saan sameeyo oo aan programka aan tago tusaale aan soo fiiriyo testigii waa kan website testiga filekan oo index soo galay file index soo galay indexkan kicinaa markaan indexka kiciyo marka aniga website-ka aan rabo inaan sameeyo waxaan rabaa qaabkan inuu noqdo sikaan aan raadino website-ka aan rabo inaan sameeyo waxaan rabaa qaabkiisa inuu noqdo qaabkan website-kan aan rabaa inaan diyaariyo website-kan u dhameystiran yihiin waxyaalihiisa midkaan aan rabaa inaan sameeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan sameeyo home page website markaan kan doorto inuu kan ii soo baxo inuu isbabedelo okay midkaan camal aan rabaa inaan sameeyo insha Allah waan sameyn doonaa waxaan ka bilaabi doonaa bilowga ilaa uu ka dhamaado okay marka meeshaan maraayo hadda waa kan wuxuu saaran yahay index.html okay waxaan rabaa meeshaan ciwaankan inaan ka bedelo oo aan ciwaan ani ii gaar ah aan u sameeyo markaan rabo inaan ciwaan u sameeyo halkan waxaan leeyahay waxaan isticmaalaa title-kan oo inta ku qorana waxaan ku qoraa tusaale waxaan rabaa inaan dhaho home means meesha home-ka laga booqanayo control s aan leeyahay waa save gareyna kadib daaratid intaad dooran kartaa waxaad dhigi kartaa preferences away okay markaas meeshaas maraysid waxaa leedahay refresh it means meeshaan waxaan rabaa inaan ku arko wax loo yaqaano indexkan inaan bedelmaan rabaa refresh aan leeyahay meesha waxaa kusoo qorantay home okay home aan helay home markaan saas u helay bodyga waxaan ku diyaarin doonaa waxa la dhahay div waxaan rabaa id inaan siiyo waxaan leeyahay div waxaan xiraa divka markaan saas u xiro sidoo kale inta waxaan siinaa waxa la dhahayo h1 waxaan siinaa waxa la dhahayo h1 waa qoraal means xarafka cabirkiisa loo leeyahay waa cabir qoraal weyn ah waa qoraalka ugu weyn ee lagu qoro html markii laga hadlayo waxaa jiro h1 h2 h3 ilaa waxay gaarayaan dhowr okay h1 waxaan u bixin doonaa website-keyga okay h1 aan leeyahay kadib website-ka waxaan u bixin doonaa tusaale website-ka magaciisa rabaa inaan halkan ku qoro magaca website-ka wuxuu noqon doonaa inaan dhaho tusaale ahaan web designing okay website-ka magaciisa wuxuu noqday web designing aan save gareeyo kadibna aan refresh u diro okay waxaan leeyahay refresh kadib meesha waxaan kusoo qorantay web designing kan wuxuu noqon doonaa ciwaanka website-keyga ama magaca uu website-keyga leeyahay okay magaca uu website-keyga leeyahay okay midkan aan soo yareeyo isna waxaan rabaa inaan meesha isla deeqsiiyo kulligood okay midkan saan ah okay web designing okay kana meeshiisa ku daa okay intagii okay meeshiisa ku daa okay marka meeshaan maraayo web designing aan qore sidoo kale waxaan soo gelinaa another div waxaan abuuraa div kale waxaan leeyahay div sidoo kale divka waa intaan ka xiraa div taaga markaan halkan ka xiro okay ina israacana fiican waxaan leeyahay div enter okay div taaga haddana waxaan meeshan ku qoraa wax loo yaqaano paragraph sidoo kale paragraphkan dhow aan isticmaali rabo waxaan siin doonaa id u gaar ah paragraph sidoo kale paragraphka halkan aan ka xiraa paragraphka intaan ka xiraa paragraphkan meeshaan aan ka xiray meeshaan waxaan ku qoraa waxaan rabaa inaan soo geliyo ul ama unordered list waxaan ka wadaa
tusaale adayba markaan website-ka kicinaynay wuxuu lahaa home page meel la booqanayo clickable ah midkaas waxaa lagu diyaariyaa UL waxa la UL markaan dhaho tusaale ahaan waxaan dhahay UL aan dhahay enter aan dhahay kadib markaan UL dhaho meeshaan waxaan ku qoraa li it means listigii la qori lahaa listiga marka wuxuu noqonaa midka ugu horeeya waa home sidoo kale another listi ama kan la soo koobiyey haddaad caajislow tahay kan soo koobiyey kadib waxaad leedahay halkan ku paste garee another one mid kale mid saddexaad okay meeshaan waxaan ku qoraynaa waxa loo yaqaano waxyaalaha lahaayo services oo kale services sidoo kale meeshaan waxaad ku qortaa waxa loo yaqaano contacts sidoo kale meeshaan waxaad ku qortaa waxa loo yaqaano about us hadhow waxaan siin doonaa links about us okay waan save gareyn doonaa waxaa soo bixi doono xarfo iyo bullets isla socdaan okay waa ujeedaa kan hadhow wuxuu noqon doonaa mid la dooran karo markaan styleka aan gelino horaan u sheegnay styleka markaan sameyno wuxuu noqon doonaa mid clickable ah oo la dooran karo okay sidoo kale waxaan diyaarinaa another diffkaasoo noqon doono imageka meesha laga soo geliyo another diff aan diyaarin doonaa diffkaas aan diyaarin doonno wuxuu noqon doonaa imageska meesha laga soo geliyo paragraphka waa kaas sidoo kale paragraph aan qoray adaart waa soo koobiyeysan kartaa wax weyn ma aha okay diffka waxaan dhexgeliyay paragraphkaas oo aan dhexgelin doono waxa loo yaqaano image oo aan kasoo gaabiyay images sourcigiisa isu siiyey markaan ka hadlaynaa programkan oo sublimeka la dhahayo waa program fiican uu dhamaystira halka texti isheeg midkan oo notepad ++kana uu ma dhamaystirayo laakiin isna waa normal laakiin midkan uu ka fiican yahay note++. wuxuu u fiican yahay xarfaha hadaad image qorto oo enter aad dhahdo isaas dhamaystirahay kaas laakiin wuxuu kaa rabaa inaad soo qortid okay meeshuu ku jiro fileka uu ku jiro intay ahayd waxay ahayd fileka uu ku jiro sawiro wuxuu kaga sii dhex jiraa midkan aan rabaa inaan saaro kan g.jpg okay sourciga waxaa lagu qoraa sawiro it means folderka uu ku jiro / magaca uu yahay haddaa rabtid waxaad samayn kartaa right click aad leedahay kadib rename aad leedahay kadib waxaa soo koobiyinaya g-da saddex xarfo badan yihiin oo kadib waxaa meeshaana paste ku leedahay marka paste daadi g-da meesha kugu qoranto dot aad leedahay maxaa raacsan jpg aa raacsan jpg markii laga hadlayo Windows 7ka haddii uu computerkaaga ku jiro Windows 7 ma kuu cadeyn doono waxa uu yahay jpg ma inuu yahay in kale ma kuu cadeyn doono hadda windowga aan isticmaalayo waa Windows 10 wuu ka casrisan yahay Windows 7ka Windows 7 markaad rabto inaad ogaato qoraalka wuxuu yahay right click aad leedahay kadib waxaad ka dooran doontaa properties kadib waxaad leedahay properties markaad dhaadid details aad leedahay kadib waxaad ogaan doontaa sawirka wuxuu yahay tusaale ahaan sawirka 1200 waaye widthkiisu waa 1200 pixel heightkiisuna waa 540 pixel okay markaan rabo inaan ogaado wuxuu yahay intaan ka ogaan karaa .jpg inuu yahay iyo in kale haddaan haasto Windows 7 laakiin Windows 10 intuu kugu qoraa kaas okay markaan jpg raacsiiyo .jpg aan dhaho oo aan save gareeyo oo aan dhaho ama save aan dhaho ama control s dhaho oo aan u diro refresh waxaan arki doonaa meeshan hoosteeda in uu sawirka soo muuqdo insha Allah okay sawirka waa kan sawirka waa soo muuqday laakiin sawirka uu weyn yahay hadhow waan nashqadeyn doonaa insha Allah sawirkan cabirkiisa waan yareyn doonaa reduce aan ku sameyn doonaa markaan style ka gaarin insha Allah okay sidoo kale sawiraan soo geliyay hadda markaan sawirka aan soo geliyay sidoo kale waxaan isticmaalaa another diff aan isticmaalaa diffkaas oo aan u isticmaali doono waxaan soo gelinayaa paragraphkaas aan soo gelinayo isna waxaan siin doonaa paragraphkaas sidoo kale waxaan siin doonaa wax loo yaqaan h2 sidoo kale h2 waxaan ku qori doonaa meeshan waxaan ku qori doonaa tusaale ahaan hadda maxaan sameynaynaa web design maho okay waxyaalaha lagu hayo tusaale ahaan things ama about us iskale about the company ama about the website waxyaalo ku saabsan website-ka
about the website wax ku saabsan ama xog ku saabsan website-ka. Okay, kadib waxaan leeyahay save, kadib waxaan leeyahay refresh. Okay, halkan waxaad ugu jeedaa inuu kusoo kordhay about the website markaan dhaho haddaa ratid waxaad samayn kartaa about the website markaa dhahdid kadib divkan hoostiisa ama inta waxaa ku sameynaya paragraphkaas oo tusaale ahaan hadda ani qoraal ma hayo laakiin waxaan kasoo koobiyeynaa helbiga. waxaan leeyahay help okay, helbigan kasoo koobiyeynaa ama waxaan leeyahay F1 okay, waxaan raadinaa note yar, waxaan raadinaa qoraal yar note ah. okay, qoraal aan diyaariyay jiraba, waxaan tagaa tusaale ahaan qoraal yar aan rabaa inaan wax qorqoro ma rabo, waxaan raadinaa qoraal yar oo diyaarsan. okay, midkan writer page ka hadlaya qoraal yar oo iska macquul ah. hadhow waxaa ratid ku qoran kartaa markaa website-ka diyaarisid. waxaa ratid website-kaaga wuxuu ka hadlayo waxyaalaha muhiimka u ah website-kaaga. okay, qoraalkan aan ka rabaa bis wax kale ma ka rabo. okay, qoraalka aan ka rabo waalaan okay, routerkan aan ku sharxaynaa bo kan soo koobiyey halaan hal paragraph waaye. okay, hal paragraph waaye halaan paragraphkan inta ku shub. okay, paragraphkan halkan ka furmay inta ku shubay. okay, midkan halkan ka furtay sidoo kale inta ka xir. okay, something wax khaldana jiro b internet. okay, paragraphka halkan inta ku shubay. okay, waa ku shubay midkan waxaan leeyahay control s. okay, kan waxaan leeyahay control s kadib waxaan leeyahay refresh. waxaan kusoo daray hal paragraph, waad u jeedaan waxaan kusoo daray hal paragraph kana. okay, waxaad samayn kartaa haddii meesha ay kugu yaraato, waxaad samayn kartaa ay kugu xarfaha ay yaraadaan, waxaad samayn kartaa interaad leedahay sidoo kale kadib aa dot siinaysaa. markaa meeshaan maraysid oo refresh aad aadid wuxuu noqon doonaa hal paragraph oo dhammaystiran. okay, ma save garaynin miya. okay, refresh kan say control s dheh ama waxaad dhahdaa save dheh. markaa save garaysid refresh dheh hadda. okay, hadda wuu kusoo darsamay. okay, waa kaas paragraph dhammaystiran. okay, waad u jeedaan. okay, sidoo kale another paragraph aan kusoo dari doonaa oo halkan ah hoostiisa waxaan leenahay paragraph cusub. paragraphkan cusub sidoo kale isna waxaa kusoo koobiyeynaya midkan dot kareeb sidoo kale enter dheh dot. okay, sidoo kale qoraalkii la socdo wax badan wax ma sameynin. qoraalkii paragraphka la qorayaa aan soo koobiyey b kadib waxaan leeyahay sidoo kale oo ku shubaa intaan ku daraa. okay, kan ka tir enter dheh sidoo kale waa kaas. okay, 3 paragraph aan soo geliyey. waxaan soo geliyey 3 paragraph iyo ciwaanadoodii. waxaan soo geliyey 3 paragraph. adhow waxaa ratida ku qoran kartaa meeshaan. okay, haddana waxaan soo gelin doonaa video. okay, waxaan soo gelin doonaa halkan videoga aan soo gelinayo hadhow wuxuu noqon doonaa xayeysiiska website-ka. okay, xayeysiiska website-ka inaan sameeyaan rabo waxaan leeyahay div video waan kasoo dhex bixinaa meesha maku soo dhex daraa. hadhow waxaan rabaa inay kala qaybsanaadaan. div markaan div dhaho meeshaan waxaan ku qoraa wax loo yaqaano paragraph oo hadhow aan siin doono id u gooni ah oo ka duwan midka aan hore usoo qaatay. okay, sidoo kale markii la qoraayo video source codekiisa waxaa lagu qoraa inaan dhaho video kadib markaan video dhaho isaa isdhamaystira ma jeedaa. laakiin midkan wax controls ma laha. okay, aan save gareeyo horto. markaan save gareeyo oo aan save dhaho videoga meeshiisa ugu baneeyay waa ujeedaa. laakiin any wax control ma laha. haddaan control raacsiisu noqona aan fiirin waxaan leeyahay controls. okay, video controls markaan dhaho oo aan save gareeyo oo aan refresh u diro muxuu sameeyey wuxuu soo geliyey ii sheeg meeshii laga maamuli lahaa codkii laakiin wax video ah kuma jiro.
laakiin video inaan soo import gareeyaan rabaa. Video markaan soo import gareeyna waxaan leeyahay source. hadda waxaan ogaanay haddii video keligiisa aan qoro ma xukumi kari, wax control ma laha. laakiin haddii video controls aan qoro waa xukumi karaa. play button uu leeyahay, other things uu leeyahay. okay, video controls aan dhahay. sidoo kale markaan meeshaan maraayo waxaan soo gelinaa source. waxyar waa ka duwan yahay kii hore oo ahaa ii sheeg video imageska. kan wuxuu noqonaa in la dhaho source. kadib markii source loo waxaan lahaa crc equal. kadib waxaan soo gelinaa videoga magaciisa iyo meeshuu ku jiro. okay, videoga waxaan soo gelin doonaa sawiro markaan soo gelino kadib slash aan leeyahay. videoga waxaan u bixin doonaa test, hadhowaan samaysana .mp4 video mp4 aan rahayaa hadda. laakiin mid kartaa ka dhigin kartaa mbg ka dhigi kartaa av ka dhigi kartaa waxa rabtaa ka dhigi kartaa. haddaan refresh u diro oo aan save gareeyo horto aan dhaho file leh kadibna save leh kadib waxaad leedahay refresh, laakiin wax video ah hadda ma yaalo. okay, si videoga loo arko waxaan sameynaa filekeygaan tagaa. filekeyga markaan tago waxaan kusoo daraa video. filekeygaan tagaa aawe filekii sawiro ahaa meeshaan hadda video ma ku jiro waa may. okay, waxaan furaa file kale aan furaa oo ah file ay sawiro igu jiraan imageskan fur. okay, videoga tusaale test kan ay test ku qoran tahay koobiyena ama midkaan koobiyena oo qosol ay ku qoran tahay copy aan leeyahay. markaan koobiyeeyo waxaan ku shubaa ay sheeg sawiradii meeshii folderkii sawiro ahaa. kadib waxaan leeyahay intaan ku paste gareena. okay, mar walba waxaa fiirinaya qosol.mp4. hadday waxaan kuu sheegay markii la joogo windows 7 ma lahan ma kuu cadeynayo wuxuu uu yahay videoga. hadduu mp4 yahay ma ku dhahayo mp4 waaye, laakiin inaad raad kelig dhahdo waaye kadibna aad properties ka doorato kadib waxaad ogaan doontaa waxa uu yahay mp4. hadduu yahay mp4 intuu kugu soo qoraa meeshaan. hadduu mbg yahay mbg kugu soo qoraa. wax walba kugu soo qoro waxaa laga rabaa extensionkiisa inaad siiso. okay, hadda qosol aa ku qoran saa la socono. okay, qosol aa ku qoran. waxaan sameynaynaa meeshaan aan hadda ku qornay testi waxaan ka dhigaynaa qosol, laakiin waa sensitive. maadadan waa sensitive case wax walbo say u qoran yihiin waa inaad u qortaa. haddaadan u qori karin waxaad sameynaysaa tusaale ahaan haddaadan fahmaynin oo aa u qori karin waxaad leedahay right click kadib waxaad leedahay rename. markaad rename dhahdo waa soo koobiyeenaya qoraalka. copy aad leedahay. markaad copy dhahdo waxaad ku paste gareynaya qoraalkaas halkan. paste aad leedahay .mp4 kadib waxaad leedahay refresh. markaan refresh ama save aan dhaho astaghfirullah waxaan leeyahay save markaan dhaho kadib waxaan tagaa website-kii kadib waxaan leeyahay refresh. okay, refresh markaan dhaho hadda videoga wuu kusoo kordhay. aan weynaysano videoga waa kan wuu kusoo kordhay. midkan waa videoga. okay, hadhow waan yareyn doonaa insha allah. videoga waa kan waan kusoo kordhinay. video oo xayeysiis ah waaye oo qoraal wax lagu sharxayo waan kusoo kordhinay videoga. hadda waxaan sameynay waxaan soo gelinay website-ka magaciisa meeshii laga booqan lahaa pageska. tusaale ahaan waxyaalaha aan haano serviceska loo isticmaalayo website-ka uu haayo. sidoo kale home page-ka oo kan hadda aan joogno ah iyo sidoo kale contacts meelaha lagala xiriirayo iyo sidoo kale about us iyo wax ku saabsan company-ga. okay, markaan meeshaan marayno last waan soo gabagabeyn doonaa insha allah. waxaan ku xijin doonaa ishak refresh and dhaho. waxaan ku xijin doonaa footerka. waxaan sameyn doonaa footer. waxyaalaha aan ka hadleyno waxaa kamid ah footer. it means website-kan waxaa lagu develop gareeyay waxaan naqaanaa copyright xuquuqda website-ka waxaa iska leh. see loo sameeyaa kaas? waxaa loo sameeyaa inaan dhaho paragraph-kan hadhow aan siin doono id u gooni ah. waxaan leeyahay paragraphka markaan furo oo b aan dhaho enter aan dhaho kadib waxaan siin doonaa hadhow id u gaar ah. okay, meeshaan waxaan ku qori doonaa paragraphka hoostiisa waxaan ku qori doonaa copyright. waxaan leeyahay copyright. waxaan leeyahay copyright. okay, waxaan aragnaa mar walba markaan copyright aan aragno xuquuqda website-ka waxaa iska leh. xuquuqda website-ka waxaa iska leh waxaa raacdo calaamad c wareegsan. see loo sameeyaa? waxaa jiro code yar oo lagu sameeyo c-da wareegsan. waxayna noqonaysaa c-daas wareegsan inaad dhahdaa copy. markaad copy dhahdo intaadan copy dhihin waxaa ka horeysa inaad dhahdo and iyo
kadib waxaad leedahay copy kadib waxaad leedahay semicolon markay calaamadda isbedesho waa uu ku saxan yahay koodka blue uu noqday kadib waxaad leedahay waxaa la aasaasay 2018 waxaana aasaasay Munye company ama Munye designer okay waxaad rabtid Munye ku soo gaabso kadibna .c waxaad rabtid waxa qofka aasaasay website ka sameeyay xuquuqda website kan iska leh aad ku qoranaysaa meesha daartid company-ga magaciisa ku qoraysaa tusaale hadda company-geena waxaan u baxsanay web design aan u baxsanay meeshan waxaan ku qoraynaa web design okay aan ku qorno horta web design aan dhahno waxaan leenahay web design xuquuqda waxa iska leh web designing company-ga la dhahayo iska leh xuquuqda kadib waxaan leeyahay save waxaan arki doonaa isbedelka dhaco okay isbedelka wuxuu ka soo muuqan doonaa video-gan hoostiisa okay refresh leh okay markaan refresh dhaho oo hoos soo dejiyo waxa meeshan uga jeedaa in sidii aan sameeyo oo under copy ahayd iyo copyright-kii aan caadi u qoray iyo waxaan u jeedaa qoraalkii caadiga aan u sameeyay oo xuquuqda 2018 web design-ku u lahaa akhyaaray waad mahadsantihiin waxaan ka hadli doonaa cashirka kale xiisada xigta insha Allah haddana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum